dhalinyarada hanqaran ayaa soo qaban qaabiye kulankan waxaana ujeedku ahaa in la abaal mariyo mas'uul horey xil uga soo qabtay maamulka gobolka Banaadir waa Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxaana ay sheegeen inuu qabtay hawl ay adkayd inay qabtaan maamuladii isaga ku horeeyay iyo kuwii ka dambeeyay intaba halku dhiga abaalmarintan ayaa ahayd halyeyga dahsoon waxaana dhalinyaradan kulanka ay soo qaban qaabiyeen ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay aqalka hoose ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada oo goobtan ka hadlay ayaa dhalinyarada u soo jeediyay inay wadaan dadaalkooda ku aadan inay abaal mariyaan dadka waxtarka u leh dalkan sidoo kalena dhiirigelin uga sii dhigay hadallo ay jeediyeen gudoomiyihii shaqada ka tagay goor hore Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo goobta lagu abaal mariyay runtii waxyaabaha badan lagu xasuusto gudoomiyaha waxa kamid ah hal ku dhigyadii ahaa karfan jaab male oo runtii uu ku sifoobay macnaha gudoomiyaha oo runtii aan ognahay maanta gobolkaas in aan la dhehaynin gudoomiyaha wuxuu ahaa qof ka tabcay ama ka qaatay hanti gobolka Banaadir inuusan ahayn oo shacabka meeshan fadhiyo ee dhammaan gobolka Banaadir iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan ay marqaati ka yihiin sidoo kale hal ku dhigidiisii wanaagsan waxa kamid ahayd ku dhisa dalkaada $1 Sheekh Yuusuf Madaale waxa uu qabtay waa laga sheekeeyay waan ognahay waan la soconaa maalintii jidkan yarka la furayay oo keedsanay soo mara oo halkan isgooska ku yimaada ayaa waxa gogol la dhigay guriga Xaaji Muuse dalxa waa joogay waa marqaateed uu yahay dalxa inuu joogay dhalinyaro aan rabaa inuu sheego waxaan idhi ra'iisul wasaare laamiyaasha inta loo dhameeyo Yuusuf taabanay bal dalxa marqaatiga waayahay hanqaran oo kulankan soo qaban qaabisay markii la abaal marinayay waxa isaguna goobta ka hadlay duqii hore ee Muqdisho ahaana gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxaana uu sheegay in dhalinyaradan markii ay soo waceen oo ayna u sheegeen in abaal marinayaan uu aad ula yaabay sida uu yiri isagoo dhanka kale ka mahad celiyay qofnimada loo gartay iyo in la abaal mariyo intiba ay jiraan wili dad damiir ku jiro rajo badan ayaan qabnaa leeyahay waxaan aaminsanahay inaan wax qabsan karno waxaan noo tilmaamay gabdhaha yararka noo tilmaamo laakiin waan isyasi jirna annaga waxaan aaminsanahay inaan waxba qabsan karin إلا إن أدونك يباش عن إسلام مسكينة وحركة يسمى الأمر كلها دعيسو مال بادية جوتا مال فريها كده منايو أما ساعة كده منايو وحين هذا يباش عالم كأنه يسوي قرمتين هذا حقيقة يباش عالم كيسوي قرمنيس أنا قاعد نسوق قرمنا على كل حال المغرب كيال الجوجا من وقت بدنا قال مرة لكن وحين لا هاي هنقرن بقول كيف بقول وندين ما علينا يا أنا وحدنا جلسين أنا قربت ضد كان فضينا ديك عصبات نقول بيرتين ضد كان أنا واحد روت المامورسين وقالوا ما تكلم روت المامورسين على هذا المؤمن جوب جوب مقدشو